halkaan naga daawanaysaan waa Universal TV barnaamijkii aanu idinka soo deynjinay waqooyiga America gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha ama Twin City-ga afka qalaad lagu yaqaan la yiraahdo dhinaca kale Soomaaliga mataanaha loo yaqaan waa St. Paul iyo Minneapolis studio-ga caawan fadhina waa xarunta caasimada gobolka Minnesota ee St. Paul barnaamijku waxa idin xiriirinay anigoo ah Cabdimalik Maxamed Askar sidoo kale barnaamijku waxa gadaal ka riixaya Sakariya Cabdiaar Mukhtaar iyo waliba Soomaali oo studio-ga caawan la jooga fanaanka caanka ee reer Djibouti وكاك برنامجك waxaan ku soo qaadnaa barnaamijyo kala duwan haday noqon leedina waraysi sports aan wareysano haday noqon leedina waxbarashada ka hadalno caafimaadka iyo waliba diinta iyo waliba fanka oo aan halkaasi ka maqnayn hadaba studio-ga maanta waxaan ku soo qaadanaa runtii Cabdi Ciise oo wiil dhalinyaro ah kuna dhashay qurbaha haatan degan gobolka Minnesota laakiin Cabdi Ciise waxa uu ku hadlaa afka Soomaaliga annageenan marka qaarkood ku nalalnay wadanka Soomaaliya kuna soo barbaarnay waa uu naga badiyaa hadaba waxaan ka wareysanaa hadii Allah wada logolaado dhalinyarada ku dhalatay qurbaha afka Soomaaliga qaar badan ayaa waxa jira aanan garanaynin oo runtii isaga ama leeg ama markaasi ka yar ama ka weynba laakiin isagoo abkeeba uga badbaaday inuu ku barto afka Soomaaliga ku soo dhawaad Cabdi Ciise studio-ga maanta Cabdimalik waa maasanta alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin runtii waxa sharaf weyn ah inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed dhamaantood gaar ahaan waalidiinta waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda Somali Media TV iyo bahda Universal TV aad iyo aad bad u mahadsantiin Cabdimalik soo dhaweysan Cabdi saad ogtahay dhalinyaro badan oo adoo kala iyo qurbaha ku dhashay qaarna hadda ku dhalanayaan laakiin si dhibaatooyinka soo food saara waxa luqada oo marka tirada $40 40 maxaa waaye kulay ka wara tirada 40 hadaba hadii aynu dib u noqono taariikhdaada cajalada dib u celin xagee ku dhalatay anigu waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Kuwait waana ku soo koray oo macnaha runtii waqtigayga badankiisba waxaan ku soo dhameeyay dawladda la yiraahdo Kuwait waqti Cabdi aad ma satay ma tagtay Soomaaliya waliga ma runtii ma tagin dama aad ka hadlayna barnaamijkeena maanta dhibaatooyinka ay la kulmaan ee dhalinyarada daadayay ku dhashay qurbaha laakiin saan chance u helin in wadankii dib ugu noqdaan xagga luqada iyo dhaqanka labadaba iyadoo hadda Soomaalida dhaqanka kala duwan xagee baad ku dhalatay Cabdi runtii anigu dawladda Kuwait la yiraahdo ku dhashay oo ku soo koray oo runtii Soomaaliya ما أدري ما أنا أركن لكن الحمد لله رب العالمين الصومالي جيجو وحنا مانتا آمن سنة هي إن دتك لا سمانة هي رنتينا عبد المالك وأرنت هتوحك وحنا انتهي وادالك والدك والدكو dalkii kula jooga qasab ma ahana Soomaaliya ku geeyaan ama markad weynaato inaad Soomaaliya aado luqadda for example imka dawladda Kuwait la yiraahdo joogta horta number 1 your first language afkaaga koowaad waa Carabiga ilaan dalkii baad joogtaa bi'adii iskuulkii moolashii bi'adii mujtamaci baad ku dhex nooshahay waxa waalidka looga baahan yahay culays inay saaraan caruurtooda guriga joogta luqadda Soomaaliyeed ma aha inuu qofku Soomaaliya aado ma aha for example future-ka waxaan tusaale kaga soo qaadaya future-ka inay Soomaaliya dalxiis u aadaan haddii guur noqoto macnaha gabadh yarka dhalinyarta inuu gabadh Soomaaliyeed u guursado laakiin hadduu yarku afkii وآدو قرني قبضوا ربعونو قرصدنا أفك سفيع عنو قرنسو ده وحنا نقولنا أنا أف إنجليزي كوا ده هذلان because أما أف عربي أما أف عربي هذا ماشي شوية because أفكي بايسودي ده يا روتينا آد أفكي وانقرت آد ما صوت عبدي أنا كسب باللون مركزي ما دام كويت كل على إلا يا لحسن أنت كجالس في الصومال هذا حسوستي ama aad aragtay dariskiina oo kala goorma ay ku badnayd afka Soomaaliga iyo afka Carabiga horta keebad bilowday xasuus runtii anu waxaan jeclahay inaan af Soomaaliga bilaabay runtiina waalidkay Ilaahay khayr ha siiyo iyo waalidiinta ummadda Soomaaliyeed oo dhamaantood والله عبد المالك runtii waalidkayga horta Ilaahay khayr ha siiyo aad iyo aad waxay ugu dadaaleen waa luqadda Soomaaliga oo badanaa guriga markaan joognay af Soomaaliga gula hadli jireen kulay bay af Carabiga ay yaqaanaan oo ay dalkii intaana dhalan 40 sano ka hor ay joogeen oo ka shaqeynayeen laakiin culayska waxay saareen luqadda Soomaaliga inay baraan runtiina aan ku wada hadalno aabahay anigu waa raaci jiray community-yaasha waan gartay aad masad waxaa jira Cabdi in caruurtu weyn marmar macallin noqdo ما جرين عرور كاويني وكوا عاونيسي أفك الصومالي إنك تقول هذا
والله رول موديل كوا مساعدة وين ريرك ما runtii cabdi maalik reerkan ana u yaraa daas way baan xaqiiqadii special waalidkaygu ahaa oo aabahay ii kacayn jiray oo Soomaalida ay dhaxgay jiray oo shirarka fariisin jiray oo asxaabtii ii dhax fariisin jiray marka caruurtii ka waaweynay maraykanka qaar baan arkay kuwa ka waaweyn bay Ingiriiska ay baraan oo Ingiriiska ku wada hadlaan oo marka ku yiraahdo dad Soomaali istiraada bar dhibaato ku waaweyn ama mobile deeyigi ba waqti badan soo haya oo gurigiisa la jooga inay ku hadlaan caruurtii ka waaweyn marka joogan guriga ma Carabi ku hadli jiray badan ama Soomaali ma absolutely af Soomaali family-geena guriga jooga af Soomaali baan ku wada hadli jirnay waxa maanta heerkaana gaarsiiyay aniga iyo walaalkay iga weynay dalka kuwii jooga maanta af Soomaaligiisuna aad baan iga fiican yahay caawa oo xitaa haduu doono gabayo qoraya waan gartay aad ma soo tahay ma jireen daris Soomaaliyeed oo isla deganeedeen oo ciyaalkooda af Soomaaliga galeen aad waa jireen dhibaatadana waxa weeye waa culayska waa guriga waa dhinaca waalidka culayskaanan aad loo saarin in luqadda Soomaaliga la baro anigu waalidiinta maanta waxaan kula talin lahaa in luqadda Soomaaliga in weer ay adduunka ka joogaan dalka joogaan number 1 afkiisa waa qasab oo dabiicad iyo mujtamaci bay ku dhaxnool yihiin oo ermaarik afka way baranayaan waxa dadaal looga baahan yahay waalidiinta inay dadaal culayskooda saaraan luqadda Soomaaliga caruurtooda sidii u bari lahaayeen futurka waa gartay aad ma satay marka anagu Soomaaliya joognay iskuulada waxaan ku soo qaadanay nimaadooyin dhan oo leeyahay Soomaaliga waxna la bari jiray gabayada waxna la bari jiray maamahaya waxna la bari jiray sheekooyinka oo cigaar shiidaad iyo adigu maadaamadan iskuul u soo qaada arintan cigaar shiidaad xagee kaaga timid runtii arinta waxa ka maqlay odayaasha waaweyn Soomaalida aabahay iyo odayaasha kale runtiina anigu community-ga Soomaalida aad baan anigu u dhax fariisan jiray oo la socon jiray aadna waa u maqli jiray laftiga imika gabayada marka la soo qaado ilaa alankan waqtigan aan joogo waxa laga yaabo dhowr kalmadood marka la sheego inaan garan waayo laakiin I keep asking dadkan weydiiya aabahay baan weydiiya hooyaday baan weydiiya the more the better ayaan runtii anigu aaminsanahay laakiin inta ma la dhihi kara marka Cabdi adigu waxaad ku guuleysatay waxaad ku dhex jirtay environment Soomaali u badan tahay cunuga Soomaaliyeed ee Kuwait ka deganaa suburban ama banaanka ka deganaa ee Soomaali badan soo dhex gelin ma laga yaabaa inuu soo jaanis ka badan helin wallahi runtii waxa ku xiranta qofka raadintiis wallahi Cabdi Maalik runtii waxa ku xirantahay community-ga Soomaalida kuma xirnaa which is good things oo ku caawinaya hadda Soomaalida community-ga dhex gasho laakiin the asaasigu number 1 waxa weey waalidka guriga imka for example family ba xafad degan gabdha wiilasha la dhashay af Carabi bay ku wada hadlayaan waalidku af Carabi buu kula hadlayaa imka anigu af Carabiga inaan kula hadlaba qasab ma because dalka way joogaan ayaga ka baranaya laakiin culayska wax weey inaan saaro af Soomaaliga sidoo baran lahaayeen ma jireen inta joogtay Kuwait dad badan oo culayskaas qasab duruuf ay ku noqotay inay af Soomaaliga bartaan dhalinyaro ka soo qaad way wada aragtay wiilasha iyo gabdhuhu way haasawaan gabdho Soomaaliya ka yimid oo iyagu sidii oo kale aan ku dhalan Kuwait laakiin aad doonaysaan inaad la hadashaan idinkana Soomaali badan aad iyo aad arinta noocaas oo kale ma jira qaar saaxiibada ayo isciil kaambiyo yar balan Soomaaliga baranaysan daaqada u galdo runtii aad iyo aad arrimahaas waa iska jiraan waxa weeyaan runtii gabdhaha ka imanaya Soomaaliya oo Kuwait ama dawladaha Carabta soo degaya ayagoo dad waaweyn oo af Soomaaliga yaqaano Carabigu xitaa ku yar yahay marka dhalinyaradu wax isku daydaa inay xitaa guur ay ka raadiyaan gabdhaha macnaha inay af Soomaaliga bartaan marka Cabdi Maalik waxa soo dhan waxa ka muhiim ah maxaa baa la soo cilkaambin caruurtu inta yar yar tahay haddan joognaa Cabdi Maalik marka caruurteena weynaato oo teenager da'doodu ay gaadho inaan niraano aab hooyo dib u mahari waa laga fiican yahay hadda yar yar yihiin chance bad qofku markuu yeeray luqaddu aad bay ugu fududahay imka for example anigu Mareykan haddaan imaado anoo 10 jira iyo anoo imaado anoo 30 jira anoo 10 jira afkaygi waxaan aaminsanahay xitaa inaan accent lahayn laakiin anoo 30 jira haddaan Mareykan imaado still adku way igu adagay maadaama aan iskuul xitaa aadayo marka culayska waxaan saari lahaa caruurtu markay yar yareen waalidku ha ku dadaalo af Soomaaliga waa afkeeni waa luqadeeni future-ka wad u baahanaysaa qasab maana Soomaaliya aado waa gartay Cabdi aad ma satay barnaamijkeena waxa interest ka dhigay Kuwait baad ku dhalatay waad ku barbaartay waad ku kortay Mareykan baad timid Minnesota hadda imisa sano joogtay Minnesota waxaan joogaa hadda almost 6 sano joogtay markaad aragtay dhalinyarada Minnesota ee soo koraya yar yarka iyo markaad idinku yareeradeen Kuwait joogtay
habkeebay maxaa ku kala duwan ama maxaa dareemi kartaa runtii waxaan dareemi karaa horta dhalinyarada Minnesota ama caruurta Minnesota degan ee soo koraysa runtii caruurta Carabaha iyo dawladaha kala jooga aad bay u dhaamaan maxaa dhacay magaalada Minnesota example kaaga soo qaaday runtii Cabdi Maalik de Soomaalida halkan joogta over 100 hadda hadaanay dhaafin waa gaarayaan 100 oo family masaajidadii moolal baan leenahay makhaayadihii hoteeladii community-yaashii TV-yadii absolutely marka waa adoo imika Soomaaliya oo kale iska jooga laakiin imika Carabaha iyo dawladaha kale imika Kuwait hadan kaaga soo qaado hadaad u badaso Soomaalida degan waa 4000 mool ma jiro community ma jiro makhaayad ka qadayso laga yaabo mid baa jirta ama taana haday doonaan ma aadayaan waad ka fogtahay absolutely marka Carabigii iyo luqadii ay dalka u dhasheen ayaa waxay ku qasbaneen inay iska raacaan laakiin Minnesota we have more chance waqti aad ba basatay laakiin waxa jira leeyahay on ku arkay in macallin guriga uu joogo luqad kala bara ومعلنkaas waa TV-ga ardayda Soomaaliyeed ama caruurtayda Soomaaliyeed kartoon bay daawadaan de abihi laba shaqo ka shaqeeya hooyadii raashinkooda bay u soo adeegtaa oo kale wax more chance u haystaan inay TV ka bartaan luqadii iyagoo gal iskuulkeena ka baranaya marka moolashii iyo kuwan kale waxaan maleynayaa inaysan caawineen markaad isu eegtay Kuwait iyo halkan ciyaalku keebay ku Soomaali yariin runtii waxa ku Soomaali yariin Kuwait because halkan the more opportunity bay haystaan laakiin Cabdi Maalik anigu waalidiinta waxaan oran lahaa qasab ma aha inaad macallin u keentaan qasab ma aha inaad saacado badan siisaan halkaad oran lahayd go back to sleep ama I'll see you tomorrow abo sariirtaada aad iska seexo maxaa dhacay af Ingiriisiga ka walwali maysid this is way ku dhashan dalkan way joogaan iskuul bay aadayaan mujtamaci bay dhex fadhiyaan ha ka walwalin way iska baranayaan culayska waxaad saartaa af Soomaaliga inaad barto mahmaha baa jirta Carabo ay ku mahmahaan ارمي الحجر بعصفورين دغخ تورسو شمبري انا كدعنا لبا شمبرود ها كدحو ما دام ان اودنا عروتيدا انغو مانتا ان برو اف انجليزيغنا اي u dhasheen af Soomaaligiina aan bari karo da waxaan ku dadaalay inaan labadaba baro waxa ay diideen hal labadaba baro luqad kaliya u baraya marka we have more chance Cabdi Maalik waa good weeyaan sad ogtahay Kuwait heesaha gabayadii wadiga yiri waan garanaya dhageysiga heesaha oo kale de waa arday dhalinyarada Mareykanka hip hop la dhageysanaya xagga Soomaaliga ka waradiyada maxaa dhib oo kala kulanta dhageysiga faankooda run ahaantii Cabdi Maalik anigu dhageysiga dib weyn uma haysto laakiin imika heesaha waa different laakiin gabayadoo kale runtii aad iyo aad ba sometimes waxaan siraahdaa I'm still from waxaan taaganahay it's okay because luqada adag absolutely kelmadaha jira imika odayaashana waaweyn oo kale Soomaaliya ismadoo kale hadallada ku hadlaan sometimes dawaaweyn aad bay ugu adagtay ma fahmi karo aad ma satay marka dhalinyarada halkan Minnesota israacada Cabdi Maalik dareemaya inaadan Soomaaliya ku dhalan wallahi arinta waxaan u deenayaa dadweynaha arinta waxaan u deenayaa dadweynaha ayagana qiyaasi kara laakiin alxamdulillah waa dadaalana waa gartay aad badna satay arintan gabdhaha iyo wiilasha dadayto waa gartay keebad isleedahay labadoodu luqadda Soomaaliyeed uu baran karaa waayo adigu wiil baad ahayd waxaad ku dhalatay Kuwait Soomaaliya baad dhalatay haddana Soomaaliga waad baratay haddaad ku compare garaysa gabar ما ذي كوس سهلنا بس لا ذا مسيء ذي بأسي سهلنا لين برتها في الصومالي. رنتي عن عبد مالك أنا واحد قياسة يا لنا قبلها حوجها أنا أفكا واقد اللي يرد أي وجدويه لكن because وحلاقي يا بقى قبل الدنيا هو يدي ما لا شوك تقول نعم لا شك يصير يسوع تها يمكن تدي كلمة بدن نعم تقول كذا أروسيا ده هو كله أروسيا دي حفلة ده هو كله دمر كنا واسكت تقانا واسكت always واسكت بيز مرتضى عاد وبدن أنا واحد جعل أنا قبله عاديات حوجها اللي يرد أي وقصوا دوي نفسه مالك وانقرتي إن مجرى مدام هذا عربي برتي عربي ناس كسر رضتي إن مريكنا أشوفته 20 years that جوكتن 15 years مثل دول اللي وكرت اللغة absolutely إمك عبد المالك مريكان واحد شوقة 8 سنة almost 11 years sometime مركن
isiraado wax qor af carabi qor sometime kalmadihi ana waa isku lama ku soo dhameeyay dalka Kuwait la yiraahdo wax waa ku soo bartay sometime markaan isiraado wax qor kalmadii baa xitaa ii gooya dib baan u fakara waxaan yiraahdaa sidee wax u jiraan ma sida ma hawaayada alifta waa waawda marka Cabdi Maalik waxay u baahan tahay inaad aad la socoto aad wax qorto aad akhriso laakiin 10 sano ama 11 years hadad ka maqnaato absolutely wadi laawasa marmarka qaarkood reerka markaan la hadlayo hooyaday iyo walaalahay iyo xataa af Soomaaliga sidii hore maaha marka way la yaabaan waxa dhaan sidee wax u jiraan waa gartay aad masatay maadaama hadda aad marka soo gashay saddex dhaqan waxaad haysataa dhaqan Kuwaidiya waxaad haysataa dhaqankii Soomaaliya adigoon wali arag Soomaaliya hadeerna Minnesota dhaqan kale ee la kulantay dhaqamada kala duwan maxaad siladaa والله runtii anigu Cabdi Maalik waxaan oran lahaa qofku haduu luqadaha fara badan yaqaano saddex luqadood haduu yaqaano ama afar luqadaha kale easy buu baranaya imika muddo aan company aan ka shaqeynayay gobolkan Minnesota ilaa 4 sano Spanish baan la shaqeynay Mexicani Guatemala Honduras dadka South America runtii af Ingiriisiga ma yaqaanaan shiftiga ninka kaliya la shaqeynayana anigu waxa waxaan isku wareernay sidaan wada hadalno Ingiriisiga ma yaqaanaan ana afkoodi ma aqaan afkoodi ku wada hadlaan ayagu ilaan meesha ayaga u badan sidan u dhageysanaya oo ula hadlayo oo u wada shaqeynanay afka Isbaanishka imika wax yar ba iga dhiman aad iyo aad baan hadda u fahmay afka Isbaanishka marka more ad taqaano luqado fara badan waa more ad luqado easy ad u bikab garaynayso waqti aad ma masatay maadaama inuu waqti badan haynin Soomaalida waa tan oo wadigan Kuwait ku dhashay waxa la leeyahay mid China ku dhashay mid ku dhashay Turkey mid ku dhashay dadka Soomaaliyeed hadhow marka la isku yimaado yaa kala turjumi doona mise waxa isleedahay guddigood wada baran doona والله walaalo horta waa dhibaato laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in aad iyo aad luqadda Soomaaliga lagu dadaalo imika tusaalan kaaga soo qaadaya yar imika Kuwait jooga ama dawlad Carabeed jooga wuxuu bartay gabadh online iska barteen Japan joogta oo af Soomaaliga taqaano Soomaaliya ka timid af Carabigana ma taqaano gabadhaas Ingiriisiga bay taqaanaa yarkuna af Ingiriisiga buu yaqaanaa waxay noqonaysaa inay af Ingiriisiga ku wada hadlaan laakiin haddii san Ingiriisi garanayn waa that's a problem unless aysan Soomaaliga u baxsan aad iyo aad marka af Soomaaliga Cabdi Maalik waa muhiim halkan haddaan joogno anigu dadweynaha waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo aan Soomaali ahayn oo qurbaha ah ay caruur ku dhalaan inay culays ka saaraan caruurtooda sida af Soomaaliga u baran lahaayeen وقرتي آدي هذا يضمن سنتين بقشة أدنو سو بقتي استوديو قمانتا عبدي ورنتي ولدنا يراو كنا رشي كويت هاتا نشوف قبل كام من صوته صومالي رسوقنا رك رنتي أفكار صومالي قبرتي هذا بس صومالي دمال كستوي دقيقة وحنا كلات لنا إن عروته دبران أفكار صومالي سي مستقبلك أي صومالي ده دمال كستوي كل شيء نسوي معدن ستيل أي هل وحكنا حيوه لغة هذا ما Thank you for having me.